bismillaahi raxmaani raxiim waxaana wanaagsan meel walbo aad joogtid kusoo dhowow wararkii ugu dambeeyey ee guud ahaan geyiga soomaalida inta badanna wararkeena maanta waxaan diiradda ku saari doonaa shirka ka dhacaya magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali khayre iyo wafdigooda dowladda ka tirsan bay u ambabaxeen magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti wafdigan oo ah mas-uuliyiintii ugu sarreysay ee heer qaran hal marna ka wada duula magaalada muqdisho iyaga oo wada socda ayaa waxay ku wajahan yihiin magaalada jabuuti halkaas uu ka furmayo wadahadalka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan waa markii ugu horreysay oo mas-uuliyiinta ugu sarreysa somalilan ay si wada jir u hor fariisan doonaan saddexda mas-uul ee ugu sarreysa dalka tan iyo markii ay bilowdeen wadahadalada u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan gudoomiyaha golaha guurtida ee somalilan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xubno kale oo ka tirsan somalilan ayaa dhankooda ka dhaqaaqaya magaalada hargeysa ee caasimada somalilan iyaga oo gaaraya magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti kulankaasi ayaa waxaa la filayaa in looga hadla arrimaha guud ahaaneed ee geyiga soomaalida wadahadalada labada dhinac u dhexeeya iyo sidoo kale isbeddel la filayo in guud ahaan geyiga geeska afrika uu ka bilowdo isbeddelkani waxaa hormuud u ah ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya dr abiy axmed madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo dowladda maraykanka oo si gaar ahaaneed danaheeda guud ahaaneed uga ilaashanaysa geyiga soomaalida xogaha iyo macluumaadka aan helayna waxay sheegayaan in kulankaasi kadib la filayo in ay natiijo xasaasi ay kasoo baxda kulanka ka dhacaya magaalada jabuuti ee caasimada dalkaasi jabuuti marka la eego kulankani ka dhacaya magaaladaasi jabuuti waxaa soo baxaya hadallo kala duwan oo ku aadan in qaarkood ay taageerayaan xisbiyada dalka ka dhisan iyo kuwa ka dhisan deegaanada somalilan xisbiyo kala duwan oo ka dhisan somalilan ayaa qaar waxay soo dhoweeyeen wadahadalada ka furmaya magaalada jabuuti halka qaarka kalena ay gebi ahaanba ay kasoo horjeesteen shirkaasi ka dhacaya magaalada jabuuti marka aan magaalada muqdisho usoo laabanana madaxweynaha soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa jabuuti uga qeybgalaya shir ballaaran oo dib loogu ambaqaadayo wadahadalada iyo somalilan dhinaca kalena waxaa hargeysa ka baxay wafdi culus uu hogaaminayo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo qayb ka ah wadahadaladaasi madaxweyne biixi ayaa safarkiisa waxaa ku weheliya gudoomiyaha golaha guurtida afar wasiir oo ah wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiiro kale iyo sidoo kale adne ismaaciil aadan oo u qaabilsan dhanka wadahadalada waa is-araggii labaad oo madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha somalilan ay ku dhex yeeshaan qaaradda afrika gaar ahaana kulanka ka dhacaya magaalada adis ababa waxaana kulankoodii ugu horreeyey uu ka dhacay gudaha magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya dadka siyaasadda falanqeeya ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlaya wafdigani culus oo labada dhinac ka socda kaasi oo ka qaybgalaya kulanka ka dhacaya magaalada jabuuti dowladda maraykanka ayaa door weyn ku leh kulankani iyada oo aan la ogeyn waxyaabaha kasoo kordhaya dhinaca kalena madaxweynaha somalilan ayaa lagu waramayaa inuu arrimo dhowra u aqbalay oo ay ugu horeyso in markii ugu horeysay si wadajir ay isu hor fariistaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda waa guddoonka baarlamaanka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sidoo kalena waxaa lagu waramayaa inuu aqbalay arrinta soomaali weyn balse si gaar ah waxaa la sheegay inuu uga soo horjeedo islamarkaana uu u eeganayo natiijada kasoo baxaysa inuu ka tanaasulo somalilan waxaana taasi la sheegay inaanay suurtagal ahayn waqti xaadirkan oo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi marnabo uusan aqbalin in somalilan ay kasii mid noqoto soomaaliya inteeda kale inkastoo wadahadaladan waxyaabaha kasoo bixi kara aanan la ogeyn inta badanna waxyaabaha qarsoon gebi ahaanba aanan warbaahinta lala wadaagin haddana waxaan isku dayi doonaa macluumaadyadii ugu dambeeyey inaan kula wadaagno puntland oo kamid a maamulada ka dhisan gudaha dalka soomaaliya ayaa si weyna waxay u dhaliilsan tahay shirkani ka dhacaya jabuuti waxaana ay sheegeen in maadaama ay yihiin maamulka keliya ee somalilan xuduudda la wadaaga in loo baahnaa dhankooda inay qayb ay ka noqdaan wadahadaladan sidoo kalena wafdi iyaga ka socda ay ka qayb galaan shirkani ka dhacaya magaalada jabuuti mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka qaba in shirkani uu kasoo baxo natiijo wanaagsan oo dadweynaha soomaaliyeed farxad gelisa dhinaca kalena somalilan ayaa waxay ka hadashay shirkani ka dhacaya gaar ahaana haweeneyda lagu magacaabo adne ismaaciil ergeyga somalilan u qaabilsan wadahadalada ay la gelaysa soomaaliya adna aadan ismaaciil ayaa ka warbixisa kulanka ballaaran ee maanta ka dhacaya jabuuti kaasoo u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan marwe adna ayaa waxay sheegtay in marka hore ay soo dhoweynayso in dib loo bilaabo wadahadalada labada dhinac oo hakad ku jiray sanadihii ugu dambeeyey waxaa dhinaca kale ee shaacay ka qaaday wadahadalada ay la yeelanayaan madaxweyne farmaajo iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa waxaana ay tiri wadahadalada labada dal ee soomaaliya iyo somaliland in la wada hadlo waan soo dhoweynaynaa waa wax meesha yaalla
ummaddu hadday wax ku muranto way ka hadashaa, way ka doodaa, heshiis bay ka gaadhaa. wada hadalladu waxay dan u yihiin labada dal, dadka ku nool, dadka reer Somaliland iyo dadka ku nool dalka Soomaaliya. waxay waliba dan u sii tahay dadka degan dalka Soomaaliya. madaxweyne Maxamed Farmaajo in qodobadii lagu heshiiyo ee hore oo dhan uu wada buriyey, oo intuu maalin soo toosay uu yidhi saxeexyadii madaxweynayaashii hore waxba kama jiraan, heshiisyadii lagu heshiiyey waxba kama jiraan, oo uu subax intuu soo toosay yidhi diyaaradaha laga maamulo magaalada Muqdisho. markaa waxaa isweydiin leh, waxaa heshiis lala galaa qof qowl leh oo wixii lagu heshiiyey fulin kara. waxaa isweydiin leh, wada hadalladan iminka la rabaa ma kuwii horaa la ansixinaya, ilaa halkaasay ka bilaabmayaane, oo 8aad iyo 9aad iyo 10aad baa ku biiraya. haddiise heshiisyadii hore ay noqdeen waxba kama jiraan, dee waa gacmo daalis. waxaa la doonayaa madaxweyne qowl leh oo wakaalad ka sita ummaddiisa, oo shicibka Soomaaliya soo doorteen, oo wixii madaxweynayaashii hore ku heshiiyeen fulinaya, oo ixtiraamaya, oo qowlkii uu ku fulin lahaa leh iyo awooddii ku fulin lahaa. wada hadalladu halkii ay marayeen min 1 ilaa 6 isu soo dhowaanshaa dhacayay. ummaddu way isu soo dhowaanaysay, baayaca mushtarku wuu kala socdaa. iminkaba dhaawaca Soomaaliya halkaan la keenaan ku daweynaa, ardayda Soomaaliya ka timaada halkaan wax ku barnaa. ummaddu way isdhex gashaa. Soomaaliya dalxiis markay ka cabsadaan halkanay u yimaadaan dalxiis. dadka Soomaaliya u dhashay halkanay kula kulmaan dadkoodii qurbaha uga yimaada. waa hagaag daawade, adiga aragtidaada sidee ayay kula tahay shirkani ka dhacaya gudaha magaalada Jabuuti? qaybta hoose aragtidaada inoogu reeb. mahadsanid.